nin sheekha bari qisan uga sheekeeyey wuxuu yidhi nin caalima oo ardaydu aad u jeclaayeen xerta aad u jeclay iska daa xerteen mujtamac oo dhan ba aad u jeclaa akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyey taqwad baa ilaahay siiyey cilmi baa ilaahay siiyey alla ka cabsi baa ilaahay siiyey laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyey islaam kulul oo dabeecad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo masalladu ku tukanaya inuu qaato looma ogolo aqalka markuu galana islaanta ku shaqaysata dhariguu karin biyuhu dhaamin dabkuu shidi iyada dhan buu cuntada siisiin markaasay odhanaysaa magaaladu sheekh bay ku haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahay ii khidmee bay odhan hadal ka keeni maayo uu khidmayn uu khidmeeyaa una ma hadlo ma sheekeeyo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa layidhi markii dambe waxay ku tidhi anu haddee toole waan daale xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaami ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahow i astur ilaa haddii la ogaado sheekhiioo xaabo guraaya oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysatay inay kaarqabtadani waa maxay sheekha dirata waa la habaarka ku dhici taabuu markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta xaaska aad iga dhigtay umulciyaalka ilaahu ha igu hoojina maanta igu astur magaaladii buu ka baxay ardaydii buu yidhi muraad yar baan leeyahay iska hadhay buuro marka xaabadii buu soo guraya dhul cilmuu tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyey biyihii buu dhaamiyey ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaayo ummadda kale ilaali buu yidhi libaax socdo unbaa u yimid oo hor fadhiistaa la yidhi sheekhi xaabadiiyo quryihii buu saaray libaaxii biyihiina dhinaca kaleu ka soo saaray magaaladiibu la soo maray sheekhiioo libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo le waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkiibuu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sidaa ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa ha igu soo gelin dibadiibuu markaa libaaxii joojistay halkiibuu kaga dhaadhiciyey xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaabay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rarteen ayaa kugu caawiyey ka tegi nabiga ku salliya ina kayda kuna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca daalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wadata maanta xagga ka keentay oo iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhii maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii iyo magaaladii baa isku tegay waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo maaragtaanay libaaxii baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaabata sheekh xaabadii iyo biyihii way naga dhammaadeene markaasuu dhib male iska fadhi insha alla ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii buu tegay libaaxii ma iman de markaas isagii baa marka ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasuu magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha raratay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina may baa lagu yidhi wuxuu yidhi libaaxii islaantii hore iska lahayd buu nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiya innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadka guriga jooga caaisha radia allahu canha baa nabiga la weydiiyo lagu yidhi nabiga akhlaaqdiisa ka warran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nabigu karkaran jiray tidhi kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tolani jiray
neefkii sana isaga maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tii laakiin salaadu hadday gaadhay tir Aisha nabigu salaadu uu soo bixi jiray beeytii dikeeba maanta oranaya intuu xaaskiisa ku ilaaday hablihiisa bal maanta nasta ana dharigaynii karana muu jira aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxa banu aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa oo xaaskiisa u khidmeeyaa oo ubadkiisa u khidmeeyaa oo noqda nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamku ay ka adag tahay buu yahay khuluq akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horeeyay ka markhaati kacay akhlaaq wanaagiisa waxay ahayd xaasaskii rasuulkeena oo naxariis badnaa oo dhibrin badnaa marka qiyamka wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhexmaray mujtamaca reer Madiina wala firso inan dhalinyara ka kacay masjidka dhexdeeda gacantu taagay ya rasuulallah ana zinada halay fasaxa buu ma deyn karayay wallahi inna lillahi warbaha marka buu nabigu ii daayay soo dhaw hal walaalaha kula dhasheen wayla dhasheen gabdha walaalahay wayla dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raali tahay markaasuu may waan ku dul dhiman buu habar yar ma leedahay waan leeyahay habar yaraha in waxa loola tagaa ma jecesha aad doonaysana ku fasaxo may waan ku dhiman buu dhimasha ka qaana marka aad jiri ii fasax zinada kaba soo qaad hadii zinadii lagu fasaxo ta aad ka zinaysan ragga halka fadhiya ama walaal ugu toosan tahay ama eedo ugu toosan tahay ama habar yar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaanta raali aad uga la ahayn ayakuna xaasaskoodii iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaanta loola tagay yakuna raali kala ma abo ku yiri rasuul marka ya rasuul daba ii ducee marka uu nabigu soo dhawow halka uu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaanta uu ku haminayo kama sax farjigiisana ilaali dambigiisana ilaahu dhaaf rasuulku وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعرابي نرير بادية أي مسايد كدنا عبد ما يتوستاقو كاديسي مسكيتك عورات طول صوب حيبو كو كاديي مركب صحابته كويا عين مركب النبي يقول دعوه دافع النبي يقول دايا النبي يقول كادده حكو كلا غوينينه ماشو كو كاديي بيا كبل كو شوب النبي يقول اسغنا يغو يدو رسولكم إن أعرابي ورير بادية ومقالة مدينة كو عصب ولعل لغا يابا إنو ويمد دين الإسلام كأنه برطو وحشود ولي أنا قلبي حشود كو قليل إيمانك ولي قلبي سن قليل دين الإسلام ولي أنا وحبك قرني ومسكيت النبي محمد عوردي سيكولا صور دحبحي كادنا كنت اللي مسكيت قدح ديدا أيو النبي قو صحابتي كلها دافو دايا السجن أنا يقول يادا ماشي كو كاديين بيك بدا كو شبا مرقابو النبي كو يدا عليه الصلاة والسلام ألقنوا مساجد ويان وعمل الله وطلق لي إن الله اللي عبد كليه بس وعمل ظاهرة صلاة اللي كذا قرآن اللي قد حخرستا إلهي اللي قد حصوصتا إياكينا وحو كو أمري هل كي وكو كادي بيك بنا كو الشبع إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين بالنبي يقول أمة ديديي أصحاب تيديي وحا إلهي أدوية وإني كيني إن هذا مدى حق أرد برسانة إن هذا مدى حق كو أتكيسان إلهي أدوية إني كيني برسولكم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا بشروا ورمض خيرك وبشارية ابو النبي يقول لي حي ولا تنفروا ومضى خيرك هكفر حننا ومضى النحريس إلهي هكقوسن ومضى الفرار هكردن ومضى خيرك وبشارية وحاتر هذا خير بين ناس وسعداء زمن كان وزمن كإسلام قصون ولا نايي وزمن كالصحوات الإسلامي قو أيسعون يسي قف دين لا لدونيا قف دين يقانا لو باهي قف ضمنمله أيا إيمان دونين طلب أمد الله ديبتو عيد والبا أمده قان أقبني مايو أمدن وحي قائد كدغني دونتا أمد إذا تقانو قيمة له وإلهي رسولك ستقانا بشاري أمد خيرك وبشاري وعادر هذا خير بين نوص والسعودة حنون كان لشيء أيو ما إلهي بان هاي سنة دعاء إلهي نو أقبل يا صدقة بحينا إلهي نقاق هذا يا ضعفاء مساكين بان هاي إلهي نضيع مايو ومدى خيرك الله بشاريا ومدى وحكا النحيا لو مشاك ومدى الرسول يسروا ولا تعسروا فضيدية ابو النبي قولي
haddaad wax sheeg ummadda u fudaydi haddii talo ummadeed lagu dhiibo talada ummadda u dhibri buu nebigu yidhi walaa tucasiruu ha ku adkeen ummadda talada ninka ummaddayda amar ilaahay ninka ummaddayda talo u qabta ee u fudaydiyana ilaahu u fudaydi buu nebigu yidhi ka ku adkayana ilaahu ku adkay buu isaga yidhi mas-uuliyiinta zamankan imaa habaar baa ku dhacaya imaa ducadii nebiga u soconaysa ogow hadday talada ummadda ay adkeeyaanna ilaahay waa ku adkayn iyakana hadday talada ummadda dabciyaanna ilaahay iyakana nolosha waa u dabcinaya mas-uuliyadda ilahay u dabcinaya ilaahay baa garabkooga galaya wa ilaa haddii kale ilaahay garabkooga ka baxaya iyakana marka dariiqad buu nebigu noo jeexay dariiqatu lxayaat la yidhahdo saad u noolaan lahayd buu nebigu kuu jeexay waddadeydii marka meel kale ha u leexan ayuha almuslim soo noqo ilaahay u soo noqo diintiisa wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu waa kaa jidkii toosnaa soo raaca la leeyahay toosan yahay waxweecad ma le ilaahay baa raalli kaaga noqon oo nebigiisaa raalli kaaga noqon oo islaamnimada kolkaas sideeda aad u qaadato noloshaada adduunyada iyo aakhira ku wada hagaagi diintu nolosha way fudaydin lidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam shaksi wuxuu ahaa diinta islaamka isaga lagaga daynayay buu ahaa markaasuu nebigu noola yimid akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan dulqaad badan sabir badan adkaysi badan naxariis badan dhibrin badan iska dhex socday dadka ula cunayay iyaka ula fadhiisanayay ula safraayay ula soconayay kii u yimaada ee la hadla hadduu ka sii jeedo qofku nebigu qoorta ma qalluucin jirin baa la yidhi uu sii wada jeesanayay hadduu nebiga qof gacan qaado qofka oo sii daaya mooyaane nebigu ma sii daynayn baa la yidhi hadduu dad meel fadhiya nebigu u yimaado assalaamu calaykum yidhaahdo 3 jeer buu nebigu salaamta ku celinayay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah 3 jeer kelmad hadduu ummadda u sheegayo 3 jeer buu nebigu kelmadda ugu celin jiray si hadalka ummadda ay u fahamtay qalbigooga u galo markaasuu diintii islaamka oo dhan buu nebigu yihi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha ilaa haalik dabaqad kastoo ummadda aad ugu jirtaa saaad u dhaqmi lahayd shareecadda islaamku way kuu caddaysay raacun bas taajirkii siduu tijaaradiisa u qaban lahaa way ku taallaa shareecaddeena mas-uulkii siduu ummadda xilkayga u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa aabbuhu xilka reerka siduu u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa ninka dhallinyarada labada waale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa jaarku jaarka kale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa xaasku ninkeeda siday ula dhaqmi lahayd shareecadda way noo sheegtay qofka saacad aad wada safarteen saacadda aad la safartay walaalkaas aad ula dhaqmi lahayd diintu way kuu sheegtay diin dhammaystiran maxaa layna siiyey diin dhammaystiran say diintaa nolosheenna ku iman bay culimmadu leeyihiin waa inaan diinta ka shaqaynaa waa inaan diinta beernaa khayrka waa la beeraa waa laga shaqeeyaa maal lagu bixiyaa waqti lagu bixiyaa dhaqaalo lagu bixiyaa fikir lagu bixiyaa la qayliyaa oon la aamusin haddaad qaylido waa lagu iman haddaad aamustase waa laga aamusa aydu dabeecaddooda habeenka way ciyaan soo jeed mise way seexdaan ya soo jeed aydii baa isku timiday way tashadeen waxay yidhahdeen anigo dadkao dhan habeenkii khalqiga o dhan habeenka waa jiifsadaane way jiiftaan oo xayawaankii xoolihii wax o dhan way hooyanayaane innaka maxaa ina wareejiye waata aydu habeenka way wareegtaan soomada salaada fajr markaa ka baxnay seexdaan baa la yidhi habeenka o dhan bay qaylayaan xaggan u kaciy xaggan u kaciy xaggan u kaciy waxay ku tashadeen baa la yidhi khalqiga inay wax la qabaan ay wax la wadaagaan oo habeenka inay iska seexdaan tuug baa markaa ogaatay ayadii inay seexatay tuugtii baa magaalada usoo dhacday ila aygu habeenkii muxuu sheegaa tuugtuu sheegaa tuug walba aqalku ku hagaagay wax ka dhacay baa la yidhi tuug baa markaa aqalku kusoo hagaagay wuxuu is yidhi kuwan waa fuqaraa waa masaakiin aqalkooga wax ma dhex yaalle urgacan yar
ومدو كمانا أركايو كيش كوريدو أي يرو مركب ماشي الفرديو ده أمصال لوجوري مبتة أي دي معي وجوري الله سيحنا لوجوري أي جيب كوري تكيش قال لي بناك يولدك ولا بحال نولو بالحالة أي دي بولاي نجي فيه والواحد على شقتك صودي لعن بالذهب بالدر مد بايد أنا وأقل يرى ضد ضعفاء ومساكين أكو هجاجو أرجع يرمى كسهلين كيش كي واحد يصوم أير صوت تعب خسار ما وحناقي وروان تعب خسارة وان تعب خسارة لقيك عمو كجبي أيدي فأوال كابو وعلى أيدي يقول لك جبان وقعان جبان أيدي ويمي دوي القرآن كي هبان هورا لك جاري هلا كنا قدوم ده بيقول صليا ومحل لوجن نقوم بالليلو وحيد وحيري قيل ذهبين كأن قيليني أنا كان الدم بينه هيد ومدنا الدم بيهيد اسمع أيها المسلم والله حق نجا كأمسب النبي يقول والشيطان أفلم رسولك بعض الكلام تميل والبكم مقضى هذا الدعاء نقول إن لم تكن داعيا فتكون مدعوا هذا أدو مدى خيرك أقويرين هذا شرك الله أقويري أقو إنان يرنا الله بحيه قيلا كنا بدقلينا هذا مستسمية هذا مستعدنا والله أمسي مالما تقدم بسنة أمد خير كوضع ويراندو تاي أوغادا مركاينا دعوة أكعنو قيلا دوا دعوة وياه وشغادة دينتا علماء كلية أنا كديني عامدينا علماء دلي يردينا أضيدينا تجارتنا فقردينا شغالهنا مدحدينا مجهنا دينتا ددال كينا قعمها سوق بصنو نيودا إن شاء الله هذا أريان نيودا بالقعنتها تابو إنه شغالة دينيد والله أقبل إلهي كدقو الله ينقدقو سعودي أرجروبه أنكو خميسة بوصاصة نصعنا اجتماعي بوصاصة خميسة دعي دونا أفر بلودي أفرت الجماعة بدل ما رجعنا إنك بحلا بقول جماعة ده إنكم عاصمة دي وحدين وطن كي سعودي أرجروبه جماعة كنا إن شاء الله هذا مستنى